ilmaha qaska magaalada kama wada jiro maamul laga dhaxeeyo waxa taan ku dhisanay koox qabiil ah intay is aruursato inay magaalada qoriyo gurato inay is magacawdo inay wax sheegto waxa iska taagay dhibaatada magaalada nabad badan ah dagaal xanooma ahan wax lagu taray dagaal lama arko waa naqaana dagaal waa lagu dhintay waa lagu dhacmay waa lagu dhaawacmay wax hada loogu jira lama arko madaxweynaha meel ka sareeya ma jirto madaxweyne baa yiri maamulku waa kiisi hore cidda dambe war laga sugaya waayo hada macnaheedu wuxuu noqonayaa qas iyo fawdo qofkan madaxweynaha warkiisa ku qancin macnaheedu waxay tahay state-ka ma aqoonsani dawladnimadana ma aqoonsani dad badan baa qaskan wata kuwii aan dooranay baa wata madaxweyne ku xigeenka iyagii baa wata waxa gudoomiyaha Muxyidiin oo gudoomiyihii degmada ah aadan Sheekh Cali Diini shirkan ajandihiisu wuxuu daaran yahay dhowr qodob oo isugu nimi waxaan ognahay guud ahaan maalmihii u dambeeyay xaalado soo kordhay oo deegaanka ka jiray xaaladaas laftooda in wax la iska weydiiyo dadka ahlu xalli wal aqdiga ay isugu yimaadeen inay wax iska weydiiyaan sidoo kale yani waxa uga aadan bulshada iyo wixii maaragta laga sameyn lahaa intaba horeyna waa looga hadlay sidoo kale waxa taageero loogu muujinayaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha state-ka dagaalka lagu jiro kooxaha al-shabaab ama khawaarijta ah oo bariyaan ogtiin oo deegaano badan oo Soomaalidu ay degan tahay dib badan ka wada annagana Ilaahay naga nabad yeelay laakiin dadyo kale walaalaheena ay dhibaato fara badan ku hayaan sidaas si la mid ah in halkaan laga muujiyo in lagu taageersan yahay shirweynihii ugaaska iyo culimadu ay wadeen oo beelaha sidee iyo nabadeyntiisa looga shaqeynayay inuu sidiisii yahay haba yaraatee wax iska bedelin nabadeyntiina ay dadka meeshooda uga sii socon doonto hadduu Ilaahay yiraahdo yani wax kasta oo ummadda masaalixdeeda in had iyo goor la isugu yimaado laga wada hadlo wax la iska weydiiyo wixii khaldan wax la iska weydiiyo wixii saxan si ay ku sii saxnaan lahaayeen hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa wax badan oo maalmahan ka jiray deegaanka oo u badnaa siyaasado xoogaa wadadoodii ka yar leexday inay wadadoodii ku soo dhici doonaan hadduu Alla idmo waxyeeladooduna ay isaga ekaan doonto intay awal ahaayeen ilaahayna uusan dhib dambe na gaarsiin haddana dhib nama gaarsiin nabadgelyo iyo waxaanu haysanaa barwaaqo haddiinaan magaalada ugu weyn weeyaan galmudug inaan bixin canshuurta oo inaan horumar ka gaarin dadkiinuna galmudug waa ku dulmanaanayaan silci bayna ku joogayaan marka waxa la iska rabaa haddii galmudug aan go'aan ka gaadin si fiican in looga gaaro oo aad ka soo kaxaysataan wasiiradii xildhibaanadii iyo dadkiin ayna ahayn si fiican aad u taageertaan oo tiir iyo muxuu ahayd cod iyo caqli baad ku darsataan laakiin midiyaha aan qarsan waxna aan qalan masuurtoobayso anu taasaan dhihi lahaa qolo kasta doorkeeda ha qaadato culimaa diinka odayaasha dhaqanka gabdhaha hooyooyinka ururada dhalinyarada mar walba waxa weeyaan waxba dhagtayadu maqalna magaalada ka jira door ay ku leeyihiin waxbarashada iyo wax muxuu ahaa nabadana iyo horumarkana ma aragno xildhibaanada deegaanka maamulka in la isla qabto hawshan bay u baahan tahay inta xalin lahayd intaasna waa inta fadhida iyo intii la aqliga la garashaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa fadhiga iyo mas'uuliyadda isugu timid oo arintaas in ay xalisa isugu timid waa soo dhaweynayaa waa taageersanahay madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo wasiir iyo xildhibaan iyo ummadda oo dhan kulligeed waxa ay raalli ka tahay baan raalli ka nahay in wax qabsoodaan baan raalli ka nahay waxaan leeyahay magaalada barwaaqaysan oo nabdoon waxaan leeyahay ha laga daayo dhibta lagu wado oo ha laga daayo hoos markaan u galo barigii Hargeysa dhagaxtuuru ka bilowday yaa waxaa yimid ina la xawas wuxuu shirku u qabtay tiyaatarka dawladii dhaxal xoog bay leedahay shirkii uu ka khudbeeyay wuxuu yiri magaalada dhagaxtuurka laga daayo oo habar jaclay ka daaway waxaan leeyahay magaalada dhagaxtuurka laga daayo ha ka daayeen beelaha wada ha ka daayeen magaaladu waa naga dhaxaysaa haddaan la rabin in kiilo baastaan in la cararo haddaan loo baahnayn ilmaha qaska magaalada kama wada jiro
isugumaanu imaan inaan maamulka bedelo inaan waa naga dhaxeeyay maamul laga dhaxeeyo ahaa talaan ku dhisanay haddaba waxaan rabnaa markaan bedelayno inaan tala isugu nimaado koox qabiil ah intay is aruursato inay magaalada qoryo gurato inay is magacawdo inay wax sheegto waxaan u baahannahay maaha haddaad noo guddoominaysaa magaalada inaan boogno dadka ugu qoryaha dheer baan waxaa la yidhi qaska codda wadda ha joojiso qaska waa joojinaynaa codda waddana farta si fiican ha loogu sheego waa ka shaqaynaynaa diyaar baanuna teknikada waa la yaqaan shaqaynaysa oo deegaanka joogta coddalana waa la yaqaan wayna fadhidaa cod walba hoosa isku xalliso diyaar baanuna waa soo dhawaynaynaa annagu maamulka waxa qaldanna in la soco waa diyaar baanuna waana ku soo dhawna dad badan baa qaskaan wata kuwii aan dooranay baa wata madaxweyne ku xigeenka iyagii baa wata galmudug waxaa la rabaa si cadaalada in loo hadlo waxaa wata intii buuxisay aqalkii shirka lagu qabtay oo sawiradoodii ka muuqdeen waxaanu leenahay maamulkii jiray oo hore baa maamula waxaa guddoomiyaha muxyidiin oo guddoomiyihii degmada ah aadan sheekh cali diini waxaa saxan ninkii kursi fadhiya oo loo asteeyo kursi fadhiya dadka ku matalahaya asagoo fadhiya in la eedeeyo laga cawdo in lama bedeli karo waana been waxaanu sheegaynaa annaga dalagama bedeli kara galmudug dawladda dhexe cid aan u idmino naga reebi ka dhaa ma jirto annagaa taladayada leh dhaqanku madax buu leeyahay odayaashu madax bay leeyihiin culummadu madax bay leedahay waxa wax lagu bedeli karaa waxaan isku raacsannahay qof dantiisii asagu arki waayey ama fadqala la wadaana dadka ma matalo in marka aan u sacabtuno waxna lagu riidi karin waxna lagu dooran karin sharcina ahayn wasaaradda arrimaha guduhuna aysan ogolayn madaxweynihii state-kuna ogolayn maxkamadihii garsoorka iyo xeer ilaalintii iyo nidaamkii dawligahana ogolayn in dad u qabo maamul kale inay yihiin waa ayaan darro weeye taa markaas inta aan kaga gudbo waxaa kaloo ayaan darro ah deegaankan waad ka warqabtaan dhib badan buu soo mara dhib fara badan oo aan galmudug nala qabin buu ku sugnaa oo innaga dhexdayada ah muddo dheer baa waxaa u kacay golaha guurtida culummada dad aqoon-yahana musaalaxa la waday shirka hadda qodobada ka mid tahay in la taageero guriga ugaasku ka furnaa wax badan baa la xalliyey wax badan baa dadkii wax dhex yaaleen xal laga gaara wixii dhimanaana in la xaliyaa la rabaa guddiyaa loo asteeyey guddiyadaas in la magacaabaa la rabaa bulshadoo dhan ay ka muuqdaan waxaan soo dhowaynahayaa shirkan ballaaran oo sharafta badan oo maamulkii dawligu mid degmo iyo heesteedba ay ka soo qayb galeen oo odayaashii guurtidu joogaan oo nabadoonnadii joogaan oo culimo awdiinkii joogto oo gabdhihii hooyooyinka ahaa joogaan waa ku farxaynaa ilaahay baa mahad leh waxaan rabnaa si wada jir ah si aan xagaldaacin lahayn si maamulku u wada jiro inaan uga hortagno inaan u qabanno waana ku raad joognaa waxaana soo dhowaynayaa nabadda sida loogu baaqo magaalada nabad baa dan u ah dagaal wax nooma ahan wax nagu taraay dagaal lama arko waa naqaanaa dagaal waa lagu dhintay waa lagu dhacmay waa lagu dhaawacmay wax hadda noogu jira lama arko waxaan soo dhawaynayaa nabadda galmudug baan soo dhawaynayaa waxaan soo dhawaynayaa midda deegaankaan soo dhawaynayaa waxaan leeyahay maamulka sharciga ha lala shaqeeyo danta guud degmadana ha la ilaaliyo amniga la qalqalgeliyey sida foosha xun ay dadka qaarkii oo isticmaalahayaan baraha bulshada wax danta degmada ah ma aha mustaqbalka degmada ha la ilaaliyo waxaan kaloo leeyahay xasiloonida iyo amniga si niyadaha loo garab istaago si kaliya laabaha loo garab istaago ma anfacayso caabudan waxa ka socdo yaan dib loo celin degmada horumarkeeda ha la ilaaliyo amnigeeda ha la ilaaliyo sharciga cidi baalmarsanna kulli sharciga la xisaabtamay diyaar waxaan u nahay cidaas leenahay waa higardaamo cidaas leenahay way gardaran tahay cidaas leenahay waa na dhibaataynaysaa cidaan u leenahay kaamigareyn bay nagu wadaa waxaan diyaar u nahay inaan ka hor nimaadno waxaan rabaa inaan idin weydiiyo intiina hadda meesha fadhida
madaxdii ma maqna gidigin magaalada meesha waa ku dhantihiin waxaad kaliya oo noo sheegtaan haddii maanta dhoola tuska iyo iscayrsiga iyo durbaanka socdaa haddii laga dhabeeyo xabadaha la isku rido halka wado oo noo bannaan oo ilmaha maanta kula carari karno dee farta noogu fiiqoo noo sheega naxaasidinin aan ku cararne aniga waxaa ila moodaa wadadaas nooma furna afarta qalba waa ka oodan walaalayaalow annagu waxaan ku faraxsanayn habeenkii dhaweyn in la nabadgelyo la sameeyo oo raxaan heshiyo annagu heshiiska raxaan baa dadka igu jirtaa kuma jirto dhib ma rabno qaxar ma rabno afarta shaha baa nalaga fulaaya saqirada in baa la gowracaya annagii baa nala baabiinaya meel walbana waa nalagu dilaya adiguna way saxaynata war yaa khalsee shay nuqranaana beenaysu sheegina ilaahay ka cabsada rasuulka ka cabsada yaana ishoos seexan runta ha lasu sheego magaalada deegaanka ha laga daayo dhibaatada iyo qaska iyo ha laga daayo baabiinta ha laga daayo dagaal teknikada xunaha baabuurta la saaray iyo waxa lala wareegay ha la joojiyo waxaan idinka codsanaynaa odayaalka iyo mas-uuliyiinta ay qusayso nabadaasna colaadda afka ku dhegi kara colaadda afka inay ku dhegaan annagu nabadaan soo dhaweynayna ayadaan garab taaganay annagu hooyaan nahay marna dhib ma wadno mar walba wanaagga iyo hagaagsanaanta iyo horumarkaan wadnaa ayadaan u dubaartamaynaa shirarkaan horay u wadaynaa nabadaan horay u wadaynaa nimanka dhibaatada wadana ha nalaga qabtaan leenahay waa in la dhow waxaana khaldan laakiin in wiil qaari la saaro oo qori loo dhiibo oo magaaladii yarta ahayd oo geesaheeda la haysto amniga maaragtaa aan ku naaloonayno xoogaagii ganacsigii iyo ilmaha aan ku korsanayno la dhooxaabaha lagu shigo cidna ka yeelmayno gabdhaha hore say sheegeen baana taageersanna deegaanka waxaan ku dhaarsanna macallimiinta dugsiyaasha iyo iskuullada ilmaha inta badan waad ogtiin markii shir loo yeero haweenka ugu badan noo fasaxan leena dhagaxyana waa guranaynaa magaaladan waxaa ka jira maamul golo deegaan oo waqti adag iyo juhdi badan la geliyay sidoo u dhismi lahaa ilaahay xamdigiisna maanta shaqaynaya oo jira uu gudoomiyana ka yahay gudoomiye Muxiidiin iyo mas'uuliyiinta kale oo asaga maaragtay la matasha waxaanu leenahay xubnaha ka tirsan golaha deegaanka ee fadqalalada iyo fawdada degmada ka wada iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo soo labistay asaguna inuu maaragtay ummadiisa iska horkeeno walaalayaal ka waantooba wixii sharci ahna sharci weeye waxaan sharci ahna sharci ma dadkan iyo deegaankan waa tashaday la iskuma dhufan karo nin soo caroodayna dadkan lama carool hayaan baan leenahay dawladda galmudug iyo degmadaanuna wada jir weeye haddii ilaahay idmana horumarku uu socon doonaa wixii tabasho qabana odayaasha guurtiduna waa joogaan mas-uuliyiintii galmudugna waa joogaan maamulka degmaduna waa joogaan saw farxsantii baa Muxiidiin u farxayaayo ninkii garab istaagi lahaa waa loo soo wadaa ninkii sharciga ku tuntayna waa laga qabanayaa anigu waxayga waa ku dhiiranayaa waana istaagaya Muxiidiin anaa isteelka kugu matala anaa sharciga galmudug kugu mataga ha ka walwalin shalay waa ka soo horjeeday markaa ka soo horjeeday oo ku diidanaa campaign bay ahayd campaign-ka inaan qof taageero inaan qof ka tago aniga jooskayga way rabitaankayga igumana nici kartid igumana adan nicna deer waniga kula shaqaynayo kula taagan tii hore aan iska xalaalayna marka waxaan ku leeyahay walwal badan ayaysan kugu qabanin والبحار بيسوق قوانين أنا كجرب تاجر ماشي كاحق أنا وقتها والله ما واحد كاسو قلي كلا إذا هدانا لمن الله يقول عليه ما قرن وحن الله تصوص ككفتن طلوا حلو الشقيو ما ملكين حكسده وحلا بمعمول الله قرقاد هيا ماشي متشوع شرعي بعدين هيا شرعي قانون جرى دورده هوس إليهن شرعي قانون جرى وزارته وزيرده كل شقيان نظام كاسل وشقينا laamaha amniga waxa la farahayaa inay shaqooyinkoodii iyo nidaamkoodii wixii loo egmaday ay ka soo gutaan annagana waa taageersanahay dagaalka dawladda ku jirtaan taageersanahay dhiigaas maalin walba ma aragtaa ummadda xaq darrada lagu daadinayo in laga hortagaan taageersanahay galmudug inay xoroodo Soomaaliya inay xoroodo oo dhibaatada iyo dadka maaragtaa shidada ku hay laga xoreeyaan taageersanahay uma baahna in la soo daba maro oo degmada hadda waxay diyaarinaysay markii qalaasaha la gelinayay gargaar ay u diyaarinaysa dadkaas soo barakacay oo degmooyinka la qabanhayo iyo gacanta ku hayso oo annagana aan ka sugayna ka wasaaradda ahaan marka waxaad moodaa inay gargaarka xataa dadkii loo aruurinayo inay lagu shidaad moodaa halkaas oo waxba salag lahaa laakiin wixii salag lahaa insha Allah waxa u deenana xildhibaanada ee dad ku shaqada leh waxaan codsanaynaa beeraha ay ka soo jeedaan inay soo badashaan
kooxdaasu wixii hadda ka bilaabma ka mid ma ahan golaha deegaanka waxaana codsanaynaa odayaasha dhaqanka ee soo gudbisaday markii horeba kuwa noo keenay sida ugu degdegsan ilaa bari dambe inay soo gudbiyaan xildhibaanada stateka oo iyaguna arrintaas aan ka codsanayno inay arrintaas wax ka qabtaan ana loo soo gudbiyo wasaaradda arrimaha gudaha tiimkeeda arrintaa ku shaqo lahaa hadda way joogaan waxaan codsanaynaa sida ugu degdegsan dadkaas nacay oo ka fallaagoobay golaha deegaanka in bedelkoodii si degdega loo keenaa wixii hadda ka bilaabmana ka mid maaha golaha deegaanka saa ula socotaan marka intaan leeyahay waxa weeye annagu waxaan isticmaalaynaa shuruucda dowladaha hoose iyo nidaamka noo yaalla iyagaa iskood u buriyey qoraal baan u qornay aan waqti siinayno oo aan ugu digayno oo aan leenahay qofkii dano ka haysta inuu kaasi mid noqdo golaha deegaanka waqtigaas ha ka toobad keeno ha ku soo noqdo golihiisa deegaanka shaqadiisana ha qabsado waa dhacday waqtigaas waa ka dhammaatay intii dee arrintaas ku soo noqotay oo ogolaatayna waa waxba kama qabno golaha deegaanka way ogyihiin wixii laakiin ka caasiyey waxaan muxuu ahaa ka codsanaynaa sida ugu degdegsan inaad u soo gudbisaan magacyadoodii aad ku bedelan lahaydeen wixii khaldamay leebelaha state ah ama madaxweyne aan u leenahay ama guddoomiye baarlamaan baan u leenahay ama baarlamaankii baa noo jooga iyagaa sharciga ku aadinaya waxaan iska ilaalinaynaa degmadeennu inayna noqonin meel lagu muxuu ahaa fidno laga sameeyo oo lagu abaabulo ama ha noqdeen kuwa amniga ama ha noqdeen kuwa saxaafadda ama ha noqdeen kuwa stateka ama sheeganaya awoodaha cidna ha ka ogolaanina deegaanka kale inuu noqdo meel lagu dagaalamo meel muxuu ahaa hubka lagu soo bandhigo